goormaan ladnaanay lugooyadii la daysay goormaan lulanay goormaan libanay 26 Juun 1960 maanta oo kale ayaa markii ugu horeysay waxaa suurto gashay in dhulka Soomaaliyeed oo xor ah laga taago calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya kadib markii gumeystihii Ingiriiska uu ogolaaday in xorriyadda uu siiyo gobollada waqooyi ee dalka Soomaaliya waxayna taasi dhacday saqdi dhexe ee habeennimadii 26 Juun 1960 iyadoo fagaaraha bartamaha magaalada Hargeysa xilliga 12 habeennimo laga taagay calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya waxaana halkaasi lagu saaray calankii Soomaaliyeed maalintan oo kale waxay ahayd maalin taariikh weyn ku leh ummadda Soomaaliyeed isla markaasna waxay ahayd maalin ay niyadda ummadda Soomaaliyeed gashay dareen farxadeed oo sida ciidda oo kale loogu dabaaldegay soo dhoweynta calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya markii ugu horeysay lagu dultaago dhulka Soomaaliya taasna waxay dhalisay aragti guud in ummadda Soomaaliyeed hankii ay waday muddo 10 sano ah iyadoo ku taamaysay in mar un la arko ciid Soomaaliyeed oo xor ah waxaana halkaasi gabay qiiro leh habeenkaasi calanka u tiriyey abwaanka caanka ee Soomaaliyeed Allah u naxariiste Cabdullaahi Suldaan Timcadde waxaana ka mid ahaa maansadii oo halka ka jeediyey sareeyo munuqsaamow aan siduu yahay eegne kan nasiib kan nasar زرعيو كتوكيه زود كلتنا وعيو السماء وقرن تاكتا مساكينو ورئيسو انتي ليتيهيو انكرانا فقيمين الزبدحويك يوم هرمو عدن زرغني وعيو الزفر الله إذا ما يغابو الزري ميسا نفضيدو الساحر كيك يقوري الزرعي من نسقامو انتي جنحي كان يجيب كان زاري haddaba sidee ayay u dhacday xurriyaddii 26 Juun ee loogu dabaaldegay munaasabadaasi maxay dadka Soomaaliyeed ku xasuustaan waxa ka jawaabaya mid ka mid ah dadkii waayojoogga u ahaa habeenkii calanka la saarayay 26 Juun sanadii 1960 waxaan ka mid ahaa dadkii ka qayb galayay feestada loo sameeyay gobonnimadaas waxaan ka xasuustaa in Soomaalidu maanta say tahay iyo say maalinta aad iyo aad u kala fog tahay kuwii bilaabe dabkan baxaya beleerinayay waa baayadooda kuwii ka bayre bahdoodka lexde boqonta gooyay waa baaba'ooda kuwii bilaabe dabkan baxaya beleerinayay waa baayadooda kuwii ka bayre bahdoodka lexde boqonta gooyay waa baaba'ooda badbadadnay guusha ay xurriyadda ku gaartay Soomaalidu waxay soo martay marxalado kala duwan waxaana ugu caddaa 13 dhalinyaro ee dhisay ururkii la magac baxay SYL waxaana marnaba aysan taariikhda iloobi doonin halgamiyaashii kale sida Sayid Maxamed Cabdulla Xasan Axmed Guray Xaawo Taako iyo Dhagaxtuur iyo kuwa kale oo taariikh iyo xusuus dheer ku leh taariikhda dalkeena Soomaaliya marka taariikhda halganka Soomaaliyeed dib loo eego gobollada koonfureed ee dalka waxa ay weli ku sii jireen xilligaasi gacanta gumeystaha Talyaaniga oo markaasi maamulayay hase ahaatee maalmo badan kama soo wareegan markii gumeystaha Talyaaniga uu isna wareejiyay maamulkii koonfurta dalka Soomaaliya taasi oo ku aadneed 1 Luulyo 1960 taasi oo ahayd 4 maalmood kadib markii neecawda xurriyadda laga dareemay gobollada waqooyi ee dalkeena maalintii 1 Luulyo waxa iyana loo dabaaldegay midowga gobollada waqooyi ee koonfureed ee dalka Soomaaliya kuwaasi oo noqday Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya in ay isku biiraan gobollada waqooyi ee dalka iyo koonfurta dalka waxay ahayd fikrad ka timid siyaasiyiinta gobollada waqooyi iyagoo wada calankii Soomaaliyeed ayaa waxay ka taageen magaalada Muqdisho caasimada dalka Soomaaliya waxaana markaasi magaalada Muqdisho lagu dhisay dawlad Soomaaliyeed oo xor ah waxaana madaxweyne ka noqday Allah u naxariistay Aadan Cabdulla Cusmaan Aadan Cadde iyadoo ra'iisul wasaare uu ka noqday Allah u naxariistay Cabdirashiid Cali Sharmaarke dhismahaasi dawladeed waxa uu salka u dhigay nidaamka dawladeed ee markaa ka hirgelay dalka Soomaaliya Allah u naxariistay Aadan Cabdulla Cusmaan Aadan Cadde markii uu qabtay talada dalka waxa uu ku bilaabay qorshayaal lagu horumarinayo waddanka
bacdama aysan jirin in kaabiyaal dhaqaale uu dalka uu lahaa waayo dalka waxa uu ka soo kabsanayey raadadkii gumaystuhu uu ku reebay allah u naxariistee aadan cadde waxaa lagu xasuustaa inuu ahaa madaxweynihii ugu horreeyey ummadda soomaaliyeed islamarkaasna aasaaska u dhigay dowlad soomaaliyeed oo hab dimuqraadiyada dalka u maamusha guud ahaan dowladihii ka dhashay waxa ay ku dadaaleen in ay ka shaqeeyaan adkaynta midnimada iyo in wax walba looga tanaasulo danta guud iyadoo meel la iska dhigayo danta gaarka ee shakhsiyeed taariikhda soomaalida waxaa ku jiray in dalka uu dagaal toosa uu la galay dowladda etoobiya oo xuduud ay kala dhexayso dalkeenna waxaana ka dhashay dhibaatooyin soo gaaray maamulkii dalka ka arriminayey taariikhda soomaalida u reebtay fallaarta mahadhada ah waxay ahayd burburkii weynaa ee ku yimid qaranka soomaaliyeed oo muddo la soo tabcayey waxayna taasi dadka soomaaliyeed dhaxasiisay 24 sano kadib in dalka uu yahay dowlad la'aan iyo kala dambeyn la'aan isku soo wada duubo maanta oo kale waa maalin qiimo weyn iyo qadarin xambaarsan oo mudan in la baro dhalinta iyo da'yarta soo koraysa ee Soomaaliyeed si aysan u iloobin oo ugu daysadaan halgamiyaashii soo maray dhulkeenna hooyo ee u soo hooyay xurriyadda maanta aan ku naaloonayno goormaan la naanay lugooyadii la daysay goormaan lulanay goormaan libanay